yaraan ku xasuusiyo waxaan horey u dhicin balse dhici kara. Bal ila sawiro sheekadan aan hore u dhicin balse dhici karta taa oo loo baahan yahay in laga feejignaado. Haddii shirkadaha xawlaadda sida Hormuud, Samtel iyo dhammaan kuwa adeegyada lacagta bixiya ee loo yaqaano mobile money transfer ay gabi ahaan istaagaan oo ay cilad ku timaado, waa sidee nolosha ummadda Soomaaliyeed? Maxay ku adeegan haddii aysan jirin lacag kaash ah oo ay Soomaali leedahay? Soo maahan adigoo taajir ah tuuso. Bal haddana ila sawiro haddii gabi ahaan istaagto adeegyada dibadda nooga yimaado importiga sida maraakiibta, doomaha, diyaaradaha iyo dhammaan ay istaagaan adeegyada ka yimaada dalka dibaddiisa sida raashinka, shidaalka iyo gaaska. Ummadda Soomaaliyeed waxay ku dambeeyeen noloshooda. Imasaad maleen inay gaajo u dhiman ama biyo la'aan. Waxaan aragnaa madax ku faanaysa. Waxaan matalnaa ummadda Soomaaliyeed iyo qaranka. Waxaan aragnaa madax aan ogeyn inta aan qoray oo garaadkooda uusan gaarsiisanayn in waddanka loo sameeyo lacag ama tabcasho wax soo saar. Waxaan aragnaa dhalinyaro aan ogeyn noloshooda u dambeyn doonta haddii aysan maantay wax tabcan oo wax ay ka soo saaran dalkooda. Kuwaasna anigu sigaan ka mid ahay. Adigu ma isku aragtaa qof xor ah oo isku tashan kara? Ka waran adigoo taajir ah haddii aad weyso waxaad cunto ama wax aad wax ku gadato. Soomaali baan ahay, sanku neefle aniga ugu sareeya. Heestaas anigu si sax uma arko. Ummadaan jiritaankooda la isku haleyn karin mise moodaa ummad geedi ah waddanka u sii degan si kontraad heshiis ku meel gaar ah ku degan. Ummadii waa kuwii isku tashan karta.